waan ku salaamay daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigtaa sheekadii taxanaha ahayd ee ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. soo gudbinta taxanahan waxaa taabageliyay cisbitaalka Marwa Fertility Center, hooyiga daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. sheekadaani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cusmaan Jaamac, sida buugga uu qoran yahay waxba kama bedeli doono, waxna kuma dari doono. sababtoo ah waa sheeko taxanaha oo aad u wanaagsan kuna saabsan geeyiga Soomaalida marka aad eegto siday wax u qoran yihiin. qaybtii hore waxay inoo joogtay markii isaga uu aaday magaalada Lisbon oo dalka Boortaqiiska ah si uu halkaasi uu kaga qayb galo barnaamij looga hadlaya aayaha siyaasadda Soomaalida Koonfureed. shirkaasina waxaa la doonayay in Soomaalida loogu sameeyo nidaam federaal ah oo sii murjiya mushkiladaha hadda ay dhexdabaalanayaan. qaybtii xigtaa waxay ku bilaabanaysaa qolo xag jir ayaa ku dooday in Soomaalida laga qaado xaqa aayakatashiga oo gacanta loo geliyo qaramada midoobay ama dalalka jaarka ah, gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya. markii shirkii uu dhamaaday waxaa la isla qaatay in Soomaalida loo sameeyo nidaam federaal ah oo qas ku salaysan. Beerag ayaana si gooni ah wuxuu igu sheegay inay meel dhigeen go'aan ah in Soomaalida laga ilaaliyo laba arrin oo ah in Soomaalida isku maamulaan shareecada iyo in Soomaalidu ay yeelato dawlad dhexe oo adag. Beerag markaasi wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay haddii Soomaalida ay qaadato shareecada in dhibaatooyinkan oo dhan ay u milmi doonaan sida cusbada ay ugu milanta biyaha. dunida islaamka meel degan oo xasiloon way ku yar tahay, nabad ayaana ugu jirta in jidkaasi ay raacaan, anaga sadheefna uguma jirto ayuu yidhi. waxa ugu weyn in hogaamiye ama aan ka duulnaa waa dantayada. sidoo kale waxay helayaan midnimo taas oo siinaysa quwad iyo sharaf. sidee ayaynu u aqbali karaynaa in dhulka kheyraadka intaasi la eg uu ceegaago inuu gacanta u galo cid naga mabda' duwan ayuu yidhi. way ku jiraan Soomaalida rag lehan ay ku yagleelaan dawlad dastuurkeeda uu yahay Quraanka. waxaanse ka xignaa dagaal. marka islaamka mar labaad uu ka hirgalo dhulka Soomaalida waxaa ballan ah inuu annagana soo weerarayo. taasina meel ayay noo taallaa. waxa uu yidhi, waxa aanu nahay dar wax akhriya oo wax dirsa. Quraanka ayaan baarnay. waxaanu ka helnay in suuradda labaad Al-Baqara aayadda 120 taas oo aan kala baxnay in haddii Soomaalidan ku qancino inay raacaan nidaamka iyaga inay waayayaan gargaarka iyo guusha alle. dhanka iyaga ma jiro quud bilaash ah. waxa dhexdayada caanka ah oo raahda ah there's no free meal. marka aanu taageerayno doorashooyinka Somaliland iyo hirgelinta federaalka nagama ahan jecel ee waxay naga tahay inaanu kala dhex galno iyaga iyo rabbigooda u gargaari lahaa. Beerag ayaa sidoo kale carabka waxa uu ku ballaadhiyay in Somaliland federaalka ay ku dirqin doonaan. marar dambe oo aan isaga dab qaadnay London, Hargeysa, Ankara iyo Nairobi waxaan ogaaday in kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda ee waaxda Afrika laga codsaday inuu Barack Obama ku qanciyo in Somaliland lagu daro ciyaarta federaalka ama lagu dirqiyo midnimo dambe. waxaa la unkay guddi uu hogaaminayo Senator Donald Payne oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee odayada. waxa uu soo casuumay dhammaan darafyada Soomaalida waxaana shirkaasi diiday oo ku gacan sayray Daahir Riyaale Kaahin. Senator Payne waxa uu shirka uu kaga hanjabay afka ka aradan diblomaasiyadda isaga oo leh Somaliland waanu ciqaabi doonaa oo waxaanu ku sanduleyn doonaa federaalka. si kasta oo loo dadaalay haddana rabitaankii federaalka si wacan uguma uusan hergelin Somaliland. waxaanu garan weynay waxa hortaagan. qolada iyaduse waxa ay tuhunsan tahay inay halkan ay ka tilisa awood qarsoon oo tooda ka xoog iyo xeelad badani. si kadiisa ayaa la iigu diray inaan howl ka soo fuliyo caasimadda Uganda ee Kampala. waxaa la doonayay in lagu qanciyo dhalinyarada wax ka barata Uganda sidii ugu biiri lahaayeen ciidamo loo dhisayo Soomaaliya. waxaan fadhiistay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee Kisenye si aan u ugaarsada dhalinyaro han leh oo ciyaarta soo galaya. dhalinyaro badan kuma aanay niyad samayn inay aragtidaasi ila qaataan. si kasta oo aan ugu beerloola Museveni kudayda isaga oo dhalinyaro ayuu Uganda qabsaday ma aanan helin cid ii soo dabacda oo aqbasha qorshaha aan ula imid ee aan doonayo inaan u diyaariyo in ay dhaxlaan talada ummadda Soomaaliyeed ee u baahan cid hoggaanka u qabata misna ka soo saarta hogga dheer ee ay ku jirto muddada dheer. ujeedka iyo qorshaha wuxuu ahaa in la helo 500 oo wiil oo dhalinyaro ah oo ugu yaraan 200 oo kamid ah isku aragti ay yihiin, loona leeliyo saraakiil ciidan oo markii loo baahdo dalka xukunkiisa qabsan kara. si loogu sii xijaabto Shiinaha oo farakulol kula jira geeska Afrika ama inuu qorshe labaad uu u noqdo madaxda maqaarsaarka ee Soomaalida Koonfureed haddii ay ka leexdaan jidkii loo jeexay inay ku maamulaan ummadda. markasta oo guuldarro ay soo wajahdo waxay ugu sii noqon jirtay nabar ku dhaca wadnahayaga
waxaan dareemi jiray inaan faa'iido laga gaaraynin howlahan oo ugu dambayntii wax walba ay fashilmi doonaan. waxa ugu weyn ee aan u baqan jiray ma aysan ahayn keliya naftayda ee cirib xumida ayaa raadayn jirta dareenadayda hoose. waxaan ka soo dhoofay aniga oo ku hunguubay iskudaygaygii Uganda, inkastoo hawsha aanan keli ku ahayn oo dadaalo keygani la mid ah ay ka socdaan Jabuuti, Itoobiya iyo Suudaan. mar dambe ayay gabar afhayeen u ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka shaacisay in lagu guuleystay qorshe Soomaalida loogu dhisayay ciidamo xirfad leh. waxaa la igu soo hambaliyay sidii hagar la'aanta ahayd ee aan u waday howlaha ururka, iyadoo la igu bishaareeyay in la isiin doono mashruuca qaybtiisa hore ay ku bixaysa lacag gaaraysa 5 milyan sanadkii, halka markii hore aan ku howlgeli jiray $500,000 wax ku sargo'an. waxaana mashruucu uu socon doonaa ilaa 2022 laga gaarayo. lacagta xaddaafka ayaa dhaqaajin jirtay rabitaankayga oo ku lamaaneed qorshihii aan ku howlgeli jiray, oo daarnaa in mar la arka jiilka lagu taamayo in ay calanka xor ahaanshaha qaadaan. xaddigaasi badan ee lacagta waxaan u isticmaali jiray si xadidan oo aan suuragal ahayn inay raad muuqdana soo geliso. 2 milyan iyo bar ayaa Hargeysa lagaga howlgalayaa, 1 milyan iyo 25 kun oo dollar ayaa Muqdisho lagaga howlgalayaa, 1 milyan iyo 25 kun oo dollarna Garowe ayaa loo qoondeeyay. Paul waxa uu sheegay inuu doonayo in Soomaalida laga maydho diin jacayl. waxa uu igu yiri, Soomaalidu waa dad diintooda difaaca, xitaa iyaga oo aan ku dhaqmin. dadka dhaqankaasi leh way adag tahay in laga lib keeno. mashruucu waa inuu tallaabo u tirtiraa dhaqankaasi wanaagsan ee Soomaalidu ay leeyihiin. waxaan xarumo ka furnay Hargeysa, Muqdisho iyo Garowe. dadka dhulalkaasi ku nool ma dareensana waxa aanu la nimid. waxay noo soo dhaweeyeen sidii dad soo kordhiyey curin cusub. markii hore waxaanu doonaynay in aan u bixino mashruuca maanfur bulsho, hase yeeshee magac bixintii markii aan u dirnay ururkii way naga diideen oo waxay sheegeen inay kicin karto dad badan oo sas ka qaba soo dhoofinta wax kasta oo cusub. waxaanay nagula taliyeen inaan mashruuca u bixino geediga bulshasan, oo waxay yidhaahdeen ereyga bulshasan ayay ku qanci doonaan oo waxay u qaadan doonaan inaad wanaagooda wadaan. hase yeeshee qolo wax isweydiin badan ayaa warsi ka keenay geediga. xaggee dadka loo rarayaa ayay odhan. waxaadna ku tidhaahdaan xagga wanaagsan ama xagga san. goorta ay ogaanayaan waa mar aynu fushannay danteenna oo iyaga aanay daba qaban karin dhaawaca dhaqan ee soo gaaray iyo maskaxda sumooday ee da'yartooda. markay baraarugaan ee ay ka gilgishaan dhagarteenna waa mar ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen. gugii koowaad waxaynu qabannay hawshii ugu horreysay oo si weyn ayay bulshadii u soo dhaweysay. lacagta waxaana loo soo mariyay hay-adaha dalka ka adeega. inta ugu badan waxaanu ka qaadan jirnay hay-adahaasi caalamiga, iyaguna hantidaasi nama aysan siin jirine waxay noo soo dhexmarin jireen shirkadaha shidaalka oo mashruuca maalgelintiisa lahaa. waxay doonayeen in bulshada loo sii bisleeyo siday u aqbali lahaayeen barnaamijka qowmuluudnimada iyo dhaqan kasta oo bidix oo lid ku ah dhaqanka suuban ee Soomaalida. Soomaalida dhaqanka bidixda ma aqbali karayaan oo dil iyo dagaal ayay ka xigaan. haddana kaas ayaa la doonayaa in la ogolaysiiyo oo caadi ay u arkaan. mar baan waxaanay siri weydii madaxdii aan u shaqaynayay toyosho u dhignayd, miyaan Soomaalida lala ganacsan karin iyada oo aanan la bedelin dhaqankooda? mana aanan weydiinin. mar dambe ayaan se ogaaday inay qayb ay ka tahay hanaankooda doorinta dhulkan Soomaaliyeed. meelna ma maalgeliyaan ilaa ay dhaqan gediyaan ama ay ku qasbaan inay qaataan dhaqankooda bidix iyo dhaqaalahooda ribada ah ay ka dhaqdeen. waxaan hoos nafta uga sheegaa malaha Shiinaha ayaa kuwan dhaama. Shiinuhu maalgelinta uu bixinayo shuruudo dhaqan kuma xiro. xagga dhismaha iyaga ayaa ugu wanaagsan qaaradda Afrika marka reer galbeedka lala barbar dhigo. Shiinuhu hal in ayuu leeyahay oo ah inaanu lahayn awood ciidan oo ku difaaca danihiisa iyo danaha dowladaha soo dhaweysta. bal eeg Suudaan, Nigeria, Itoobiya waxa ka dhacay mashaqo ahaan. guushaas aan gudaha ka gaarnay kadib waxaa lagu casuumay shir ka dhacaya magaalada Nairobi. shirku waxa uu daarnaa sidii wax la isaga weydiin lahaa sirta habmaamulka Somaliland oo guurtida ah iyo sidii doorashooyinka ay guushay ka gaadheen oo looga waxtarsan lahaa inay noqdaan kansho ama fursad bulshada lagu kala fogeyn karo. guurtida marka la eega cadaawad weyn ayay u qabaan oo waxay aaminsan yihiin inay tahay golo lagu kala badbaaday oo nabadda salka u dhigay. waxay soo jeediyeen in dacaayad lagu furo si marka dambe sirtooda jiritaanka loogu dhaxal wareejiyo si fudud loogana doorto sida wakiilada oo kale. waxay istusiyeen haddii taasi ay ku guulaystaan inay luminayaan murtida ka dambaysa aasaaska golaha guurtida ta doorashooyinka. waxay soo direen in daraasaad lagu sameeyo sidii loo abuuri lahaa aragti ugub ah oo keenaysa
inay beelo kala adkaadaan oo gigidda siyaasadda habbeeleed loogu kala xooganaado. Soomaalida dhexdeedana beel u adkaysan kartaa in laga badiyey inay liqdaa way adag tahay sida lagu helaa. daraasadda waxaa maalgelisa hay-ad astaanteedu ay ahayd 2 qof oo iska soo horjeeda oo ka howlgeli jirtay dalka. shirkaasi waxaan u sii dhaafay London oo aan ku soo dekeeyey bil nasasho iyo tamashle ah. markii aan soo dhoofay ayaan cagta soo geliyay xaruntii ururka. waxay igula kaftameen in Soomaalidu ay tahay dad adkaysi badan oo asal ah oo adag, sidoo kalena in la dooriyey ku adkaatay. waxaa kaloo ii sheegay waqtigii gumaysiga inay yimaadeen qaaradda Afrika oo badigeed ay muslimiin ay yihiin, haddana si dhayal ah oo aan sidaasi u sii ridnayn diinteedii kaga dooriyeen. Soomaalida dhowr qof mooyaane ay ku hungoobeen inay dhaqankooda dooriyaan oo diintooda ay dabamariyaan. kalsanadeed kasta waxaynu keennaa 3 ilaa 2 gacan bidix ah ama qoomuluud ah, mid ama 2 ayay ka gartaan oo ay buuq ay ku furaan, kaasoo aan ka badnayn 3 xisho. marka dambana sidii xumbada ayuu isaga dagaa buuqaasi. aniguna hawsha yada ayaan iska sii wadaa. keenista qoomuluudka waxaan ugu dan leeyahay waa inaynu ubadka soo koraya uga dhignaa tusaale ay ku daydaan. kulamo hoose ayaan isugu diyaarinaa inay dhallinyarada ay kula hadlaan. waxaan u jeedinaa hadallada u badan dhiirigelin ay dhallinyarada ay ku farayaan inay jebiyaan derbiga dhaqanka, fikirka duuga ah iyo waxay ugu yeeraan dib u socodnimada. waxay ku beerlaxawsadaan maan furnaada oo yeela waxa idinku ugub ah si aad dunida horumaraysa ula jaanqaadaan. 1, 2, 3 ilaa 30 waanu doorinay ilaa iminka. waxaanse aanu qaatiyaan ka taagannahay dhowr wadaad. beereg ayaana habeenkii dambe waxa uu ka helay isaga oo ku jira bartiisa Skype-ka in nabar ama muddo ayaan isxaal waraysanay. markii dambe waxaan u sheegay waxa naga haysta wadaadda jallaafa ku ah howlgalka yaga iyo sida dhallinyaro badan ay ugu noqonayaan jidkii asalkooda ka abuurnaa. beereg isma uusan dhibin oo wuxuu ugu yidhi, kuwa laambadoodii way baktiday ee ha ka baqin. wuxuu bilaabay sheeko wax ku oole isaga oo leh, waxaanu nahay duul sahan dirta marka ay dan leeyihiin iyo mar kasta oo dal ay ku duulayaan. waqtigii aan u qorshaynay inaynu duminno khilaafkii islaamka ayaana sahan u dirnay nin oday ah oo garaad badan. waxaana safar ugu baxay magaalo madaxdii islaamka ee Qustandaniya. intii magaalada aanu gelin wuxuu la kulmay caruur badan oo duleedka magaalada u jooga tartan. mid ooyaya ayuu ku yiri, adeer maxaa kugu dhacay oo aad la ooyeysaa? wuxuu ugu jawaabay, 10 laab ayaan ganay oo mid ayaan la waayay abaartii. odaygii wuxuu ugu yiri, oo 9 ayaad la heshay, maxaa kaa oohiyey? wiilkii yaraa ee muslimka ah wuxuu ugu warceliyey, gamuunka 10aad ee aan la waayay waxa ku badbaadaya cadowga islaamka, taas ayaan ka ilmeynayaa. halkii ayuu odaygii sahanka ah ka sii huleelay isaga oo hungo kala soo laabtay. waxaana uu dhaahiyey inaanay dhoweyn xilligii la qabsan lahaa khilaafadii islaamku. isla odaygaasi waqti dambe ayuu soo laabtay isaga oo sahan ah. sidii si lamid ayuu u arkay wiil yar oo ooyaya. markii uu weydiiyey waxa uu la ilmeynayo wiilkii yaraa wuxuu u sheegay inuu waayay gabar uu jeclaa. markaas ayuu sahankii waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii la dumin lahaa khilaafadii islaamka. sidii ayaanu ku burburinay ilaa magaceedii la waayay cid soo qaada. wuxuu iigu daray inay waqti dhoweed koox gaala ah ay ku sheegeen culimo islaam ah, soona mariyeen dhowr dal oo islaam ah, cid garataana ay waayeen. markaas ayaynu garanay ayuu yidhi inay baktiday laambadii dunida islaamka u baxaysay. hadda way lacag jecel yihiin oo wax badan oo saamayn ah ma lahan ee ha u joojin ayuu si cad igu yidhi. adduun jacaylku waa jidka qura ee aan ku jebin karayna kuwa ka jeesaday taladii digahoodii ay raaceen. dhallinyarada ka noqonaysa jidkeennan ayaanay murug ku gelinin, kaliya ku dadaal dhowr hablood iyo wiil aynu ka dhigno laambad ay ku soo hirtaan. si aad u jihaysa jiil badanna waxaad u baahan tahay inaad abuurto dhowr jiil oo ay ku daydaan, si indhala-aan ahna way u dabagelayaan. waxa aan weydiiyey bal inuu kuwii hore iiga warramo. halkaa inoo joogta qaybtii xigta ee sheekada ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. buuggaani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac. qaybta xigta inta aan ku kulmi doonno nabadgelyo.